walimada rasuullada cutubka labaad oo kolkii maalintii bentecost la gaadhay meel bay kulligood wada joogeen oo waxaa filan lahaan samada ka yimid sanqadh sida dabayl xoog leh oo aad u dhacaysa oo waxay buuxisay gurigii ay fadhiyeen oo dhan markaasaa carrabo u kala qaybsamayaa sida dab oo kale iyaga u muuqday oo ku dul fadhiistay midkood kasta kolkaasaa waxaa kulligood ka wada buuxsamay ruuxa quduuska oo waxay bilaabeen inay afaf kale ku hadlaan sidii ruuxu iyaga u siiyey hadalka markaas waxaa yeruusaalem joogay yuhuud oo ahaayeen niman cibaado leh oo ka yimid qurun kasta oo samada hoosteeda joogta oo markii sanqadhaas la maqlay dadkii badnaa ayaa isu yimid wayna yaabeen maxaa yeelay nin kasta wuxuu maqlay iyagoo afkiisa ku hadlaya oo dhammaantood way wada naxeen oo yaabeen oo waxay yidhaahdeen baleeg kuwan hadlaya oo dhammu miyaanay reer galiile ahayn sidee baa midkeen waluba u maqlaa iyagoo ku hadlaya afkeenna aynu ku dhalannay innagoo reer bartiya iyo mediya iyo ceelaam iyo kuwa deggan mesopotamiya iyo yahuudiya iyo kabadokiya iyo bontos iyo aasiya iyo farugiya iyo bamfuliya iyo masar iyo meelaha libiya oo kuranaya ku wareegsan iyo ajanabiyo rooma ka yimid oo ah yuhuud iyo kuwa raacsan labadaba iyo reer kareete iyo carabta waxaynu maqlaynaa iyagoo ku hadlaya afafkeenna oo ka hadlaya ilaah waxyaalihiisa waaweyn markaasay wada yaabeen oo shakiyeen oo waxay isku yidhaahdeen tani macnaheedu waa maxay qaar kalena way ku qosleen oo waxay yidhaahdeen kuwan waxaa ka buuxa khamri cusub laakiin butros intuu 11 isla taagay ayuu sare u qaaday codkiisa oo ku yidhi iyaga nimanyow reer yahuudiya iyo dhammaantiinnan yeruusaalem degganow tan ogaada oo hadalladayda dhegaysta waayo kuwanu ma sakraansana sidaad u malaynaysaan inay sakraansan yihiin maxaa yeelay tanu waa saacaddii saddexaad ee maalmeed laakiin waxaanu waa wixii lagaga dhex hadlay nebi yoel ilaah baa yidhi maalmaha ugu dambaysta waxyaalahanu waa noqon doonaan ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad oo dhan oo wiilashiinna iyo hablihiinnu waxbay sii sheegi doonaan raggiinna dhallinyaradahuna waxbay arki doonaan odayadiinnuna riyooyin bay ku riyoon doonaan haa oo maalmahaas addoommadayda rag iyo dumarba ruuxaygaan ku shubi doonaa iyaguna waxbay sii sheegi doonaan oo waxaan samada sare ka muujin doonaa yaabab dhulka hoosena waxaan ka muujin doonaa calaamooyin kuwaas oo ah dhiig iyo dab iyo uumiskii qiiqa qorraxdu waxay u beddelmi doontaa gudcur dayuxuna wuxuu u beddelmi doonaa dhiig intaanay iman maalinta rabbigu taas oo ah maalin weyn oo caana oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca rabbiga ku dhawaaqa oo badbaadi doono ragyow reer binu israa'iil hadalladan maqla ciisihii reer naasareed oo ah nin ilaah idinku caddeeyey shuqullo xoog leh iyo yaabab iyo calaamooyin oo ilaah ku sameeyey isaga gacantiisa idinka dhexdiinna sidaad idinka qudhiinnuba u og tihiin markii isaga lagu gacan geliyey taladii ilaah goostay oo uu hore u oga gacanta sharci laawayaasha ayaad ku qabateen waadna ku qodobteen iskutallaabta oo disheen isaga ilaah baa sare kiciyey oo ka furfuray xanuunkii dhimashada maxaa yeelay dhimashadu ma xejin karin waayo daa'uud baa isaga ka hadlay oo yidhi had iyo jeer baa rabbigaan hortayda ku arki jiray maxaa yeelay midigtayduu joogaa si aan la ii dhaqaajin taas aawadeed qalbigaygu waa farxay carabkayguna waa reereeyey weliba jidhkaygu rajuu ku nasan doonaa maxaa yeelay naftayda haadees kuma dayn doontid kaaga quduuskaana uma dayn doontid inuu qudhun arko waxaad i tustay jidadka nolosha hortaadana farxad baad iga buuxin doontaa
walaalayaalow waxaan si bayaana idinku sheegi karaa in awoowe daa'uud dhintay lana aasay xabaashiisuna ilaa maanta waa inagu dhex taal haddaba isagoo nebi ah oo ogaa in ilaa dhaar ugu dhaartay isaga inuu dhashiisa midkood carshigiisa ku fadhiisin doono wuxuu hore u arkay oo ka hadlay masiixa sare kiciddiisa inaan isaga haadees lagu dayn jidhkiisuna qurun arag ciisahan ilaah baa sare kiciyey annagoo dhammuna markhaatiyaal baan ka wadannahay haddaba isagoo ilaa midigtiisa sare loogu qaaday oo aabbaha ka helay ballankii ruuxa quduuska ayuu soo shubay waxan oo aad arkaysaan oo maqlaysaan maxaa yeelay daa'uud samooyinka koor uma aadin laakiin isaga qudhiisa leh rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagaaga hoostooda geliyo reer binu israa'iil oo dhammu aad ha u ogaadeen in ilaa ka dhigay rabbi iyo masiixba ciisahan aad isku tallaabta ku qodobteen markay taas maqleen ayaa qalbiga laga wareemay markaasay ku yidhaahdeen butros iyo rasuulladii kale walaalayaalow maxaanu falnaa markaasaa butros iyagii ku yidhi toobadkeena oo midkiin kasta lagu baabtiiso magaca ciise masiix dembidhaafkiinna aawadiis oo waxaad heli doontaan hadiyadda ruuxa quduuska maxaa yeelay ballanka waxaa leh idinka iyo carruurtiinna iyo kuwa fog oo dhan in alla intii rabbiga ilaahayna uu u yeedho hadallo kaloo badan ayuu markhaatiyahaan ugu waaniyey isagoo leh naftiinna ka badbaadiya qarnigan qalloocan markaasaa kuwii hadalkiisii aqbalay la baabtiisay oo waxaa maalintaas lagu daray iyaga baaraha 3,000 oo qof oo waxay ku sii adkaysteen rasuulladu waxay beri jireen iyo xidhiidhka ka dhexeeyey iyaga iyo kibista jebinteeda iyo tukasho oo naf kasta cabsi baa gashay oo rasuulladii waxay sameeyeen yaabab iyo calaamooyin badan oo kuwii rumaystay oo dhammi waa wada jireen wax walbana waa ka wada dhexeeyeen oo intay iibiyeen waxyaalahoodii iyo alaabtoodiiba ayay dhammaan u wada qaybiyeen sidii nin kasta baahidiisu ahayd oo maalin walba iyagoo isku wada qalbiga ayay macbudka ku jiri jireen oo kibistana guryahooday ku jejebin jireen cuntadoodana farxad iyo qalbi daacada ayay ku cuni jireen ilaah bay ammaani jireen oo dadka oo dhammuna waa u bogay iyaga ilaahna maalin walba kuwa badbaadaya ayuu ku dari jiray